الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهد علينا يا بهذا قولها بنيسي قارهام صاحبك أحمد ورنتي دال دير قليي قبصامي كلهم كان أساس كمدشهم كنا بلابي موضوع آد مهم سؤال بان ربا inaan ku bilaabo inteena meesha joogta intee qof maalin walba ku feecabta maalin walba ma sha Allah ala soo badanaya runtii kufeegu waa maaragtay geed aad qaali u ah waxa la yiraahdaa maalintii adduunka waxaa laga cabaa 400 milyan oo koob oo qaxwo ah ama kafee ah suuqiisa ama marketkiisa ganacsina waxaa lagu qiyaasaa ilaa 18 bilyan oo dollar sanadkii runtii waa qiyaasi kartaa ahmiyadda uu leeyahay geedkaas iyo isticmaalkiisa inta uu leeyahay waa ku faraxsanahay in ay dadka kafeega caba ay soo badanayaan wadamada ka faa'iideysan jiray oo aadka ugu maaragtay hodmay waxaa ka mid ahaa wadanka aan dariska nahay walaalaheen Yaman 50 sano ka hor iyo wixii ka sii horeeyay kafeegu wuxuu ahaa shay ay adduunka u suuq geeyaan marka uu soo go'o waxay ku aadin jireen munaasabadahooda farxadda sida aroosyada iyo wixii la midka ah nasiib darro waxay ku bedesheen qaad awal annaga u qaxi jirnay markay kafeega ka ganacsan jireen hadda laakiin magaalo walba Soomaaliya ku taal bale tuulooyinka joogaan Yamantii maadaama ay joogaan madax reer Sanaag oo isugu jira heer federaal iyo heer Puntland iyo aqoon-yahan waxaan ku talinayaa in dadkii la wacyi geliyo deegaanka quruxdiisa iyo wanaagiisa waa laga sheekeeyay almadow ee anigu ma tagin laakiin waa meelahan jecelahay inaan tago deegaanka isaga ah dadka ka yimaada iyo Sanaagba waa dad hawlkar ah waa dad qabow oo degan oo ilbax ah in saaxiibkay oo tagay oo ka hadlayay deegaankaas wuxuu yiri 2 saacadood baan habeen jiifay 2 saacadood kaliya waxaan soo kacay sidii aniga oo 8 saacadood jiifay deganaanta iyo qabowga iyo naftu sidii ugu raaxaysatay dhibaatada haysata deegaanka waa wada ogsoonahay waa jidad la'aan ama infrastructure waxaan ku talinayaa maadaama ay joogaan dad siyaasiyiin ah oo heer federaal iyo heer Puntland ah in si adag lagu qareemo deegaankaas in infrastructure-kiisa laga shaqeeyo sanadkii hore waxaan ka qayb galay shir NTB la yiraahdo oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay qorshaha isbeddelka qaranka waxaan ka tirsanaa qaybta technology-ga waxyaabihii aan meesha ka sheegay inkastoo aan maaragtay fulin lahayn laakiin fikradii aan soo jeeday waxa ka mid ahaa markii laga hadlay fiber cable-ka in deegaankaas fiber cable la marsiiyo oo qorshaha qaranka lagu daro tala ahaan meesha waa gaarsiiyay laakiin lama fulin maadaama uu yahay deegaan strategic ah oo xeeb saaran oo baabalmandab u dhow in kaliya kafeega iyo dahabkii waxa aan loo fiirinay mustaqbalkana meel la dago inuu noqdo oo dadkeena Soomaaliyeed oo gubtay oo kulul deegaanka ay tagaan waa iska qaboobi doonaan sida dadka reer Sanaag
فكر أهان واقبة شخصي أهان أنا قدرت كمالي والفكر فيك عبارة كتيرة وحكي لنا صاحبك أو وضع شقينه هذه أنا الصبح دي ولي بأسوق هدوسك فيك عبي ما بشقين كلام waxaan ogsoonahay in aan shaaha aad u cabno waxaan ognahay shaaha inuu keeno xanuuno koroniga ugu horeeya xanuunka soo macaanka waxaan rabnaa inaan caawa laga bilaabo maadaama aan subaxdii koob la'aan joogi karin inaan u qareenno inaan u guurno kafeega waayo kafeegu wuxuu ku siinayaa firfircooni waxaa laga yaabaa inaad ka maaranto inaad duhurkii seexato halkaas shaahu وكسيني مركا أعبتي حوجا نشوة energy لكن وكجو أي عافمات كاجا يو في الفرعون ده وياه واحد سنة مركبة سولية المرة بعد وحن كسو جنانا ديا مدام يجوجا مدح كترسن إن هير فدرالي هير بنتلامبا يأقويهن إن أن كدرسنا وحيابها أن أقريمينه وديجان كان أقاضينه شرر بعد جلسة إنه priority كله ديجان كاس وحيا له وعليس لساره وحن كسو كوبيا هالبوستي أو والله مركي وأحمد سوق ليني بهري أن كسمي إن كست حكت مرك كواد خلدي وحاسي شركري إن ورياش بتنا كتر سنة ضدنا يكون حريين إن فورمشكو واخلدنا لكن وحن بربر دقي برازيل وأهملها وجبنا والعيها أي كسمية إن هذه ديجان كهذا الألوق هي 6 كيلومتر لما الجليو سنة كوي حلقة صار كرا initially 10 مليون بشي almost ما من سنة كوي حلقة صار كرا 10 مليون و almost سنة والبو أو بيل والبو صار كرا 1 مليون وقياس أهان مركوا فهم كرنا هذه ما ركتي سفع لو ما الجليو industries كلا دوان جد كحوش كشكيني وما ركتي detergency ذهب ك وحاول جاي باب الصوماليا علمدوا إنه كف الناط إن وكذا ركسنا وضن كان أهمية ديسة لكن وحول بقول الشيء وإني الشق وحليرة advocacy يشقو إن وحن ربا إن هالمر وقعن تاجنو وسلب لنقانو عاوي جد كاس كفيجة إنه النقطة شيء أنو وقرأنه سيد حوش هالكان كيري إن أمال قشنه إن أن أولولينه إن أن عالم كجارسينه وأن كدرسنه وحيابها national treasure شركة أما تذكرنك أن لنا أنت سنكسو كوبيا